am sorry, madam. I will not be late again. Actually, my daughter is alone at home. Iga raali noqo Marwo, mar dambe ma habsaami doono, inantaydii baa guriga keli ku ah. Save it. I don't want to hear your lame excuses. You have to clean this entire house. You have to make a lot of food as well. My daughter likes chicken, spaghetti, and a cheesecake. Kaydii waxaas ma rabo inaan maqlo cudurdaarkaas malayacniga ah, waa inaad nadiifisaa gurigan oo dhan. Sidoo kale waa inaad kelisid cunto faro badan, inantaydu waxay ka heshaa digaaga iyo spaghetti iyo cheesecake. Don't worry, madam. I will not disappoint you. I will clean this house before. Ha ka warwarin Marwo. Ma niyad jabin doono. Waan nadiifin doona guriga oo dhan ka hor. The kitchen is over there. One more thing, don't steal anything. Madbaxu ama gijadu. Halkaas ayay ku tala. Hal shay oo kale waxba ha xadin. She is Grace. She is very rich and arrogant. Tani waa Grace, aad bay taajirad u tahay wayna isla weyn tahay. Good morning, my sweetie. How are you? Subax wanaagsan macanto, sideed tahay? I am good. Where are you going, Mom? Waan fiicanahay, halkeed tegaysaa hooyo? I am going shopping. I hired a new housekeeper. She is making your favorite food. Waan soo tukamaysanayaa. Waxaan soo shaqaalaysiiyey shaqaalad cusub, waxay samaynaysaa cuntadii aad ugu jeclayd. I am not hungry yet. I ordered pancakes from the restaurant. Weli maan gaajoon, pancake ayaan ka dalbaday maqaayada. Okay. I will see you soon. God bless you, my sweetie. Waayahay, waan ku arki doona dhowaan. Ilaahay ha ku barakeeyo macantayda.